shaqadeenan waxay tahay inaan soo saarno qudaarta noocyadeeda kala duwan ka mid tahay yaanyada simirsaanta hadda noo beeran waxaan rajaynayn waqti dhow inay soo go'do ganacsigan cusub bulshada wuxuu u soo kordhiyey simirsaan taasoo markii baahideed ay jirtay waddanka aanan ka bixin uga imaan jirtay dalka dibaddiisa sidaas ayaa nagu dhalis inaan yaanyada simirsaanta aan soo saarno dadka aan uga faa'iideyno caqabadaha soo wajahay waxaa ka mid ah noqolad environmentiga oo yaanyada ay la qabsan karin oo u baahan tahay taxadir badan oo u baahan tahay insecticides oo asagana soo weeraro inta badan taxadir u baahan waxyaabo badan iska jiro oo hadda insha Allah halkeedana ku jirno fursadaha haysano waxaa ka mid ah inay tahay simirsaanta suuq inay qiimo ka leedahay oo wax la jecel yahay dadka hadii maanta soo saartid ay tahay wax ka baxay oo hadhow adiga kugu soo laabanin mise qasaar ku keenayo qodobka labaad waxay tahay yaanyada simirsaanta sida ognahay 2018 ka hor waxa laga keeni jiray dibadda laga keeni ilaa hadda dibadda laga keena oo Soomaali wax ku filno ayada maanta Soomaaliya yaanyada u baahan tahay waddanka kama baxdo sidaas darteed anaga waxaan ugu dhalis inay yaanyada simirsaanta fursad waxa ka helnay suuq inay leedahay darteed saasaan u beeran barnaamijkan dalbil waxa ku maqalnay social media meeshaan ka soo apply gareynay kadibna wayna aqbaleen waxay noo sameeyeen tababaro ilaa dhowr bilood socday kadibna waxay noo sameeyeen maalgelin kaga faa'iideysanayna soo saarno beertaan u jeedaan hadda ilaa muuqato waxaan rajaynaynaa insha Allah in shirkaddeena inta ay ka sii balaarnaato ilaa ay gobolada dalka ay sii gaarto si wax soo saarkeena qayb ugu noqdo wax soo saarka dalka cunno ku filan waddankana loo helo sidoo kale looga maarmo hadda yaanyada simirsaanta noo beeran dalka dibadiisana nooga imaad si looga maarmo dalka uga soo saarno si hadafkeena noogu hirgalo marka waxa ka codsanaynaa bangiyada inay barnaamijkan nagu taageeraan nagu garab istaagaan maadaama aan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed ee u istaagtay inay waddankooda wax ka soo saartaan dalbile rajo soo celinta dhalinyarada Soomaaliyeed